madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo ee martiqaadka rasmiga ku jooga dalka isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa kulan la qaatay wasiirka madaxtooyada ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Imaaraadka Carabta Sheikh Mansour bin Said Al Nahyan isagoo wasiirkuna qasriga madaxtooyada dalka Imaaraadka Carabta ku qaabilay wufuudan ka socda dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu horkacayo isagoo wasiirku muujiyay meeqaamka diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo Imaaraadka Carabta ka dhaxeeya inta uu leeyahay iyo sida ay ugu faraxsan yihiin inay iskaashi horumarineed ay la wadaagaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxaana madaxda labada dawladood ee Somaliland iyo Imaaraadka Carabta dhexmaray kulan siyaasadeed ku salaysan cilaaqaad wadaxaajood isku tiirsanaan iskaashiga horumarinta labada bulsho ee ku kala dhaqan dalalka Imaaraadka Carabta iyo Jamhuuriyadda Somaliland waxaana si qoto dheer lagaga wada hadlay xiriirka ay wadaagaan Jamhuuriyadda Somaliland iyo Imaaraadka Carabta sidii loo soo kobcin lahaa isla markaana la isku meel dhigi lahaa qorshayaasha horumarineed ee labadan dal ay yeelan doonaan mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba Dr. Saad Ali Shire wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku xog waramay kulanka dhexmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka madaxtooyada ee dalka isku tagga Imaaraadka Carabta waxaanu nimisaan la kulanno dawladda Imaaraadka waxaanu maanta la kulannay Sheikh Mansour bin Said ayaan la kulannay wasiirka madaxtooyada si wanaagsan baa hadalkaas noogu dhacay waxaanu ka wada hadalnay danaha labada dal dhinac walba waana isku afgaranay si fiican oo noogu dhacday si wanaagsan inta halkaan joogay waana ku soo dhaweeyay oo milgeeya sharaf leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inta uu ku sugan yahay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta waxa uu kulamo kala duwan uu la qaadan doonaa mas'uuliyiinta dalka Imaaraadka Carabta hogaamisa iyo jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalka isku tagga Imaaraadka Carabta Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland magaalada Abu Dhabi ee dalka isku tagga Imaaraadka Carabta